maanta waa ujeedaan maamul gobolka Banaadir wuxuu halkan ku soo bandhigay 3 mashruuc oo aad iyo aad muhiim u ah oo aan rabno inaan uga mahadcelino cid kasta oo kaalin ka geysatay kuwaas oo ah kunkii dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyay iyo howlihii muhiimka ahaa ay maamulka gobolka iyo magaalada Muqdisho ka qabteen oo dhan walba isugu jirtay ha noqoto dhanka nadaafadda dhanka dariseynta iyo dhanka u gargaarka iyo ka warqabka bulshadaba sidoo kale mashruuc kale wuxuu ahaa oo halkan la idinku soo bandhigay oo aan soo gabagabeynay isna nalalka cadceedda ee labada wado muhiimka ah ee wadnaha iyo jidka Sodonka oo ayagana la dhameystiray oo hadda aad arkaysaan inay habeenkii aad iyo aad u ifayaan oo iyadana ku timid juhdi iyo wada shaqeyn maamulka iyo hay'adihii naga taageeray iyo shacabka gobolka Banaadirba iyo ugu dambeyntii mashruuc kale oo ah oo arki doontaan 2 baabuur booyada ah oo dhibkan ugu hayso biyaha la dhuuqayo iyo 2 cagaf yar oo ayagana nadaafadda looga qayb qaadan karo dhammaantoodna waxay ku timid wada shaqeynta dhow ee kala dhaxaysa hay'adda UNDP iyo maamulka gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhalinyarada runtii oo muujiyay fursadda la siiyay darteed in magaaladan caasimadda ah ay noqoto caasimad la tartami karta caasimadaha adduunka kaalinta ka qaadateen iyo howlaha aad mar walba dhalinyarada u taagan tihiin waa mid anaga nagu dhiirigelinaysa howlaha aan wadno inaan sii wadno waan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad howlahaas sii laba jabaartaan waxa u shaqeynaysaan waa shacabkiina waa ummadiina waa caasimadiina waa dalkiina intaas ka sokow maamulku waa maamulkii shacabka waxaan ballan qaadnay inaan shacabku u adeegayno u qabanayno howlaha muhiimka ah maantana inaan 3 mashruuc idin soo bandhignana waxay ka tarjumaysaa isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta iyo sida maamulka gobolka Banaadir uu mar walba diyaarku ugu yahay in wax walba bulshada loo qabto ay noqoto mid bulshada ku faa'iida waxaad aragteen fiidiyoga la intusay bulshadii oo ka hadlaysa sida ay mashaariicdan uga faa'iideen sida ay xaafadahoodii isku bedeleen xagga nadaafadda ha noqoto xagga nalaynta ha noqoto iyo mashaariicdan kale oo maanta qalabka aan la wareegayn oo noqon doono qalab ayagana bulshada loogu adeegi doono xilli roobaadkii oo aan joognana aan uga faa'iideysan doono si weyn intaas ka sokow maamulka gobolka Banaadir wuxuu hiigsanayaa in caasimadan ay la tartanta caasimadaha adduunka sida kaliya ku dhici kartana waxay tahay shacabkeedii maamulkii oo gacmaha haysta midnimada iyo wadajirka ka shaqeeya ummadana waa ummad lagu yaqaan runtii adkaysi muxuu hal abuur iyo in ay tusaan caalamka in Soomaaliya ay kacday ee horena u socoto waxaan mar kale idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad barnaamijkan nagala soo qayb gasheen oo ku yimid juhdigiini dadaalkiini dhalinyarada Soomaaliyeedna abaalkooda ma ilaabi doono waxaan rabnaa inta aan fursad helinna in la gaarsiiyo oo shaqo abuurku u noqdo mid joogto ah isla markaana qof kasto dhalinyaro ah oo Muqdisho jooga inuu noqdo qof shaqo helo taasna waxay ku imaanaysaa waxay tahay dadaalada aan sii wadno ganacsatada iyo qurbo joogtana waxaan ugu baaqaynaa dawladda hoose kaligeed ma kaafin karto dhalinyarada maaragtay baaxadda leh waxaa loo baahan yahay la iska kaashado inay iyagana maalgashi ku sameeyaan sidii dhalinyaradan shaqo u heli lahaayeen waxa kale oo iyagana jiro mashaariic kale oo aan soo wadno oo aan soo bandhigi doono laakiin hadda waxaan rabnaa inaan halkan si gaar ah uga mahadcelino madaxa UNDP George Conway oo runtii muujiyay leadership oo muddadii aan joognayna si dhow aan uga wada shaqeynay arrimaha muhiimka ah arrimaha mudnaanta aan siinayna aad iyo aad noola qaaday isla markaana u istaagay sidii shacabka loogu adeegi lahaa annagana dawlad hoose ma jirayso haddaan shacabka loo adeegin shacabkana ma jiraayo haddii aysan helin adeegii ee u baahnaayeen waxaasoo dhan marka waa wax isku xiran oon rabno idinkana inaad xilkan mas-uuliyaddan noogu ducaysaan in ilaahay nala garab galo annagana aan u dhaaranay inaan noqono maamulkii shacabka wax allaale wixii shacabku u baahan yihiin aan mudnaan siino una fulino aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu